taariikhdu tahay 7 bishii 12aad 2025 waxaan halkan ka akhrinaynaa bayaan ka soo baxay qayb ka mid ah ururada siyaasadeed ee ka diiwaan gashan gobolka Banaadir ee Soomaaliya ku madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya og ururada bulshada rayidka culamaa diinka madaxda maamul goboleedyada ama dawladda federaalka dawladaha xubnaha ka ah qurba joogta haweenka Soomaaliyeed waxgaradka ururada siyaasadda iyo dhammaan inta ay khusayso badbaadada dawladnimada Soomaaliyeed ujeedo bayaan ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya waxay leedahay taariikh sharaf leh oo ku suntan dimuqraadiyad iyadoo ah dalkii ugu horeeyay ee Afrika oo hirgeliyay doorashooyin madax bannaan laguna kala wareegay awoodda si nabad ah sanadkii 1967 inkastoo muddo dheer laga soo wareegay waqtigaasi in la qabto doorasho qof iyo cod ah haddana ururada siyaasadeed ee dalka ka jira waxay waafaqeen sharciga ah inay isku diiwaan geliyaan guddiga doorashooyinka qaranka si ay uga mid noqdaan una suurto geliyaan inay ka qabsanto dalka doorasho qof iyo cod ah mar labaad loogana baxo hanaanka qabaliga ahaa ee 4.5 hase yeeshee kadib qiimeyn qoto dheer oo la xiriirta hanaanka ka qaybgalka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee gobolka Banaadir waxay qaybo ka mid ah ururada siyaasadeed ee ka diiwaan gashan maanta soo saareen bayaan ay ku midaysan yihiin oo ku saabsan doorashooyinka hakinta ka qaybgalka doorashooyinka golaha deegaanka gobolka Banaadir sababaha hakinta ka qaybgalka doorashooyinka hufnaan la'aan iyo ku tumasho sharciga doorashooyinka golaha deegaanka gobolka Banaadir 2 in xeerarka iyo habraacyada doorashada aan si dhab ah loo ilaalin gaar ahaan dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa 110aad iyo sharciga doorashooyinka lambar 28 qodobka 21aad farqada F iyo xeer lambar 23 qodobka 19aad farqada 2 iyo qodobka 36aad farqadiisa 4 3 in guddiga doorashooyinka waayay hanaankii madax banaanida uu ku wadi lahaa doorashada iyo xakameynta faragelinta joogtada ah ee ka imaanaysa maamulka gobolka Banaadir 4 arrimahan dhammaan aan kor ku soo xusnay oo isbiirsaday waxay dhaawaceen kalsoonidii shacabka iyo sumcaddii hanaanka doorashada qayb ka mid ah ururada siyaasadeed waxay soo jeediyeen baaqan hoos ku qoran in dalka laga badbaadiyo isbarbaryaac fowdo iyo qallaaso siyaasadeed oo dalka u horseedi kara dagaalo sokeeye iyo burbur 2 in loo midoobo difaaca amniga qaranka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho 3 in laga fogaado hanaan kasta oo doorashooyin isbarbaryaac ah oo si kala fogeynaya midnimada ummadda Soomaaliyeed 4 in loo istaago gurmadka abaaraha iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed mudane madaxweyne waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa in aad u dhagan nuglaato afkaarta ururada siyaasadeed ee diiwaan gashan ee doonaya in dalku badbaado aadana doorasho xor iyo xalaal ah qof iyo cod ah hufan lana isla aqbalo natiijada ka soo baxda mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in aad dhageysato una dhagan nuglaato baaqyada kala duwan ee ka soo baxaya jihooyinka siyaasadeed ee kala duwan mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa kuuna garab istaagaynaa inaad u istaagto
dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed inaad u istaagto joojinta colaadaha iyo dhiigga daadanaya ee dalka Soomaaliya adigoo u kaashanaya waxgaradka culamaa u diinka aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo cid kasta oo wax ka gasha wabillahi tawfiiq